halkaas xujooyin kala duwan baa ka imaanaya dadka qaarkood markay maqlaan waqtiga aan ku soo biiray iyo ka hor maxaan ahaan jiray horta macallin baan ahaan jiray 75 ayaan annagoo la furay tababarkii macallimiinta soo dhamaysanay ayaanu macallimo ku bilownay anoo sidii macallin oo Kismaayo iyo Xamar iyo ka soo shaqeynaya Muqdisho joogaa ayaa radio Muqdisho waxaan maalinta dambe ka maqalnay ogeysiis inay doonayaan 3 qof oo wariyaal ah loo tababaro oo shuruudaha caynkaas yeelo oo waa isfiiriyo waxaan leeyahay shuruudahaas waa kuwa aad ka bixi karto hal meesha aan sii taagay haduu arjigeygii baan qortay dadkii baan ku biiray waxaan ogaaday maalmo kadib 311 qof inay qorteen raajidii dadku waa la kala saaray adoo 104 qof baa soo hartay ugu dambeyntii nasiib wanaag 3 qof oo la rabay qofkii saddexaad baa noqday qofkii koowaad waxaa noqday nin la oran jiray Axmed Muumin Doolal ilaahay ha u naxariistay waa u dhintay iyo maxaa xasan cali washi oo isaguna hadda wariyaasha waaweyn oo waddanka ka mid ah abwaan qoraa anaa saddexaad baa noqday sidaasaa markaa nala ku qaatay dad badan oo liiska ku jiray oo aan naga dhicinin oo meelaha qaarkood nooga fiicnaayo kaydkii galayna waa dambe iyaguna ku biireen marka 78 bishii June ayaan ku biiray radio Muqdisho idaacaddii ugu horreysayna waxay ahayd oo warkii dalka weli waa xasuusta 9 bishii September 78 bay ahayd markaan radio Muqdisho ka shaqeynayay muddo barnaamijkii bandhiga radio la dhigi jiray oo aad iyo dadku ay u jeclaayeen waqti fiican soo gali jiray waqti qadada ku beegan oo dadku ay shaqooyin ka soo ruuxaan hees fiican iyo mowduuca markaas ugu muhiimsan dunida iyo wararka dawladda ay soo saarto dadka la ogeysiinaya iyo kadib telefishinkii baa bilowday telefishinkii markuu bilowday telefishinkii baan haddana ku biirnay barnaamij kale oo isna waxaan ku lahaa la oran jiray mowduuca toddobaadka oo wararka caalamka iyo arrimaha waaweyn ee ka dhacaya sida faaqidaada adduunka oo kale baan samayn jirnay annagoo marka halkaa marayna ayaa 80maadkii BBC-da iyo waxaa heshiis u dhexmaray radio Muqdisho ama waaxda idaacadaha Soomaaliyeed kadibna halkaas ayaa BBC-da waxay ogolaatay marka wariyaasha inay tababarto wariyaal tababaro badan la siiyay oo gabdhay iyo rag iyo dumar iyo nooc walba ah oo saxaafadda dhinacyadeeda kala duwan aan ku jirnay markii dambena waxay noqotay inay xushaan dad ay ugu talagaleen inay 6 bilood oo shaqo ku tababarada la yiraahdo London loo soo diro kuwii baan ku jirnay aniga iyo rag badan oo Haydar iyo Daandure iyo Nuur Shire iyo rag badan oo saasi ay ku jireen marka 88 baan imid 6 bilood markaan dhamaystay waan noqday arshigii aan qortay baa laga aqbalay 89 ayaan soo noqday bishii January 89 ayaan markaas ka shaqo bilaabay BBC marka BBC iyo idaacadaha madaxa bannaan waxay kaga duwan yihiin kuwii hore annagu markaan radio Muqdisho iyo telefishin ka shaqeyn jirnay waxaanu ahayn kuwa sida xalaasha uga tarjuma mabaadida kacaanka macnaha afka dawladdan ku hadlaynaa qofka kale oo dawladda ka soo horjeeda cod kuma leh meesha laakiin halkan markaan nimid waxaan la yaabnay wax uu maarta wax mucaaradaya iyo wax xaganaya iyo wax ka sheegaya maahane wax kale ma jiro war mid boqorada wax ka sheegaya iyo mid prime ministerkii waddankan wax ka sheegaya iyo xoogaa marka waxay noqotay in aan la qabsanay sheekadii Soomaaliya marka waxaa khasbayay in dadku ay u arkaan isha kaliya inuu yahay waxa dhici kartay fiiri nin ka mid ah wariyaashii ugu waaweynaa waddanka ka soo warramaya waxaa la yaabay shanta iyo barka xamar idaacadda markaan soo galayno markii la islaynayay milishooyinku dagaalka waa joojinayaan waa dhageysanayaan qoladii maanta la durkiyay iyo qoladii maanta dagaalka ku jabtay iyo kuwii xoogaa meel qabsaday iyo waxay ku tusaysaa marka in gobollada xataa waddankaasi iska warqabin oo gobollada qaarkood ay doonayaan inay ogaadaan gobolka ku xiga wixii ka socday iyadoo aan la isu gudbi karin oo dhibaatada jirtay darteed ee dagaaladii sukay iyo colaadii dadka u dhaxaysay waxay ku tusaysaa horumarka maalin walba farsamada casriga ah ee adduunku ay ku tallaabsanayso iyo warbaahinta iyo horumarkaasi waxa uu soo kordhinayo iyo sida uu yahay maanta waxay maraysaa in aad inta fariisato 10 daqiiqo 20 daqiiqo warka caalamka inaad dhageysato aadan waqti isaga lumin haddaad hawlo badan leedahay ama teleefankaaga smartphone-ka ah oo teleefanadan maaragtay casriga ah
ayaad haysataa halkaasaa warkii dhan kugu soo dhacaya maanta adduunkii o dhan wuxuu isu bedelay in telefishinka uu koobnaado in idaacadihii wararkoodii ay koobnaadaan laakiin ay noqdaan wax xiisa leh oo dadku aysan meel kale ka heli karin inaad u xusho bay noqonaysaa laakiin haddii aad farsamadii hore ku socoto waxay noqonaysaa inaad lagaaga